مدحرس الدعالي قدوميها ولا لها دور الشدة وقع بسن حسبك عدالة دريل الكوعد أياكو قودين حسبك سوعد ود مقيمي ميسان لكم وقونين تونو حسبي هذا كلا ديجي سامر كلا جار دور الشدة مدحتني مدى حلقان لو قودين كده سؤال لان كقرصونتو صدحية بنك بيش نوفمبر استضبيا قضى سنة كحلقان سي قلبنا يا لبدا كونية تضبية بنك وحنوسيدها قدوميها ولا لها حسبك وعد كشاقي قوف فقارا ugu khudadinay boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiga UCID oo saaka soo dhaweyn diiran ugu sameeyay kagida diyaaradaha cigaal kadib markii uu ka soo laabtay socdaal ugu maqnaa dalka dibadiisa waxaan idinku imi inaynu dhalino guusha UCID waxaan idinku imi inaynu bedelno sharci la'aanta aynu ku bedelno sharciga iyo qawaaniinta waxaan idinku imi inay Soomaaliland noqoto qaran jira oo sharciga iyo qawaaniinta u yaala ku kala dambayso ee aanay fawdan noqonin oo aan ninkii doona wuxuu doona iska sameeynin kaar qaadashadii baynu ku jiray olole kumaynaan jirin labadii gobol ee ugu dambeeyay baa inoo bilaabmaya 12 bisha oo berita ah insha Allah ta'ala maalinta kaar qaadashada labada gobol dhamaato wax la Soomaalidu waxay tiraahdaa deerada ta ugu itaalka daran ama ugaadha ta ugu itaalka daran ba ugu hor cararta xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani ee maanta sii bilaabay ololaha waxay la mid yihiin ugaadha tii ugu itaalka darayda ay sii carartay waanu ka warhaynaa inay labadii bilood saddexdii bilood ay soo dhaafay olole ku jireen inay laba boqol baabuur ay u kaxaystaan gobol kasta oo uu ka bilaabmayo laakiin annaga xisbiga UCID wuxuu ilaalinayay sharciga dalka u yaala wuxuu ixtiraamayay guddiga doorashooyinka qaranka iyo go'aanada ay soo saartay taasuu ixtiraamaya kuna dhamaysanaya kaar qaadashada laakiin waxaan leeyahay nimanka sidii deerada caatada si carcararayay gobolada waxaan leeyahay maalinta labada gobol ay dhamaato Sooliya Sanaag kaar qaadashadeedu maalintaas ay bilaabmaysaa doorashadii qaranka ololaheedii uu bilaabmayay maalinta fagaara isugu keenaan leeyahay dalkan waxa ku soo baxay naf iyo maal fara badan ayaa inuu maanta halkan soo gaaro ku baxday oo u dhintay maanta inuu dib ugu noqdo oo raadkiisii dib u qaado dhowr iyo 26 sano ka hor uu joogay dalka Soomaaliland diyaar uma aha xisbiga UCID ma yeeli maayo tolaaye ya reer hebela ya xaafadayadiya xaafad heblayna jecel xaafad heblina wayna neceb tahay annagu ka bilaabi mayno haddaanu nahay UCID dhankooda waxaa halka hadalla kala duwan oo soo dhaweyn ka teediyay gudoomiyaha gobolka Maroodijo xisbiga UCID xogeyaha warfaafinta gudoomiyaha garabka haweenka iyo sidoo kale xogeyaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID waxaanay dhammaantood ku nooloosadeen ahmiyadda gaar ahaaneed ee dib soo gadan qoshada gudoomiyahooda ololaha doorashada ay ulaadey xisbiga iyo kaalinta mugale ee uu ka qaadan doono dardargelinta hawlaha xisbiga oo xilligan isu diyaarinaya doorashada madaxtinimada xogeyaha campaign-ka Axmed Xirsi Ducaale gudoomiyaha campaign-ka أحمد حرس الدعالي aad baan ku soo dhaweynaa mujtamacani ilaa saaka guddoom iyo ku taagnaayeen ilaa 7 subaxnimo adaanay ku soo dhaweynayeen Allahu akbar UCID ha guulaysato xogayaha yagii campaign-ka ayaa maanta waa xogayaha yagii campaign-ka ee ugu sareeya campaign-ka waana ninkii UCID guusha gaarsiinayay mishinka doorashooyinka qaranka waxaan u sheegayaa xalay toole waxaan daawaday Maxamed Jaamac oo kamid ah xubin komishinka doorashooyinka qaranka kamid ah oo la saddexda xisbiba way sameeyeen olole waxaan leeyahay ma aanan sameeynagu UCIDahan labada gobol ee imika campaign-ku ka bilaabmay labada xisbiye kala ka sameeyay oo dad ku dhinteen kaar qaadashadu ka bilaabantay labada xisbiye kala ka sameeyay dad baa ku dhintay ololahoodii qaarna dhakhtarka yaalaano waa dhaawac waxaan leeyahay komishinka cadaalad darrada iska daaya inaynu hawleenu aanay qabyo ahayn aynu dardar gelinayno diyaar u nahay doorasho dadweynaha waxaan u sheegayaa annagu campaign ma wadno annagu waxaanu ixtiraamaynaa shuruucda iyo qawaaniinta waxaana soo dhaweynta boqolaalka shacbi ee taageerada mugale u hayay xisbiga UCID saaka ugu sameeyeen afaafka garoonka Kasokow lagu soo galbiyay gaadiid tiro badan
ilaa uu ka soo gaadhay hoyga uu Hargeysa ka degan yahay. Faysal Maxamed Aadan, Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.